wiilkan dhalinyarada oo ka soo jeeda gaar ahaan Gees qowmiyadaha Oromada ayaa baraha bulshada aad iyo aad laga hadal haya. Wiilka yar oo haddana kasoo duubay Facebook iyo YouTube-kiisa oo soo geliyay sawiraanta kala duwan oo lagu sawiray magaalada Hargeysa. Laakiin dadka reer Somaliland ayaa aad iyo aad ka cadhaysay sawirkan. Dadkeeni haddana naano Oromo dhulkeena meel walba oo laga yimaado habeen iyo maalin oo sawirka la isaga qaado oo idina ah ka sii hadlaynin oo hadalna ka haynin badan oo ka soo jeedna qowmiyadeena Oromia magaalada oo kala duwan oo iyagu habeen iyo maalin ay sawirka iskaga soo qaadaan ama video kala duwan ay iskaga soo duubaan aan iska aamusanahay. madaxweynaheena oo iska aamusay hadaladii oo iyagu wada waxa kamid ah ila dhageysta si ay ku soo badanayeen dadka Itoobiyaanka gaar ahaan Oromada kuwaas oo halkaas ka sameeyay ganacsi iyo shaqooyin fara badan iyagoona lagu tilmaamay kuwa khatar ku ah dhaqanka iyo sidoo kale amniga Somaliland. sidoo kale waxa xusid mudan qowmiyadda Oromada hadda tahay been abuura oo kala duwan ay nagu soo wadaan dadka reer Somaliland oo wax kala duwan oo lagu sameyn jireen oo dadkeena Oromada habeen iyo maalin ay ku leynayaan oo la kala duwan oo ka qaadanayaan aan iska aamusanahay. laakiin dadkan waxaan ku arkaynaa maanta baraha bulshada wiilkan dhalinyarada oo dadkooda marka shaqo waayeen ay ku soo foofeenba hadalkooda oo wax kala duwan ay ku soo bandhigi jireen maqaanaysanin oo dhan aan soo saari jireen dad Oromo. laakiin wiilkan dhalinyarada oo iska si nabad qaba oo soo duulayaan iyagu sida weerarka oo soo weerarayaan Facebook iyo YouTube iyo TikTok-gaba. laakiin anagu inaan qaadan karaynin hadalkan ayagu ku soo wadaan wiilka yar oo waxa uu soo doonay magaalada Hargeysa qisooyinkii oo barigii hore oo awoowayaashigiisa iyo dadkeena Oromo dhan oo ulamadeen muslimiinta oo dhan. laakiin meeshii isagu tagay oo habaali barigii hore oo leeyihiin Oromada oo lagu aasay ayuu ku soo yeegay hadalladaas ma sameeyay sheegashada magaalada baamsa sheegashada Somaliland. hadalkan waxay ka soo jawaabtaan dadka reer Somaliland waxaan idin sheegayaa. laakiin qof meel walba sawir ku gali karaan habeen iyo maalin haddaad sawir tahay dadka reer Somaliland waa disawirka dhexdeeda oo lagu gali jireen arad kiiloomitir oo magaalada Adaamaleeda oo habeen iyo maalin oo video ka soo duubi jireen. videogaas oo laga soo duubaan intii qabsanaysa inay jirin dadkeena oo dhan dawladda deegaanka oo maamulada deegaanka Oromia oo waxbana dadkiisa iyo dalkiisa ba hadal ka haynin oo taageersay Itoobiya. laakiin anagu dhibaatadan oo wax walba oo nagu keentay dawlad la'aan dawladna aan haysanno waa dawladda Itoobiya. laakiin Somaliland maanta inay arrinta yar oo saa u faafisay laakiin anagu wax walba aan siinay dhulka la siiyo safaaradda Itoobiya oo loo dejiyay aleeyin Somaliland oo dejisay safaaradda Itoobiya. Somaliland Itoobiya u dejisay Oromo waxaan idin sheegay ila dhageysta dawladda deegaanka dawladda Somaliland waxaa la siinay safaaradda inay ku dhistaan dhul. laakiin safaaraddaas dhul la siiyay dhul waa dhul Oromo oo leeyihiin dhul Oromo ayaa la siiyay. laakiin wax walba taasoo kaliya ma ganacsatada oo kala duwan ayaa jirta warka aad imika dhan oo soo faafinaysan baraha bulshada tallaabada imika wadaan bartiiba inaad ku joojisanayaa idinka raba. dadka Somaliland si nabad ayaan u wada noolaan jiray si nabad dadku wada nooleeyeen. laakiin xaaladda aad maanta keenteen wiilkan yar ay soo duulaysan inay waxbana ka jirin hadalkan inay joojisanayaa idinka rabnaa walaalayaal. qof walba hadalkiisa oo nagu soo tuuray Oromada magaalada Hargeysa matali jireen Oromo. qof walba markuu wax xumaan sameeyay waxay leeyihiin waa Oromo. qof markuu wax qurux badan sameeyayna waxay leeyihiin yaa waa nin Oromo waxa soo waan ka nagu soo sameeyay. laakiin maanta inaan yeelayna ma qaadan karaynin duulaankan oo lagu soo qaaday dadka oo baraha bulshada habeen iyo maalin been kala duwan ay soo gelin jireen been abuurka oo soo wadaan. qof walba hadduu meel walba ka yara sareeyaan inay xanaaqsan yihiin inay iyagu ka hooseeyaan mooyaane meel walba inaad tagto dad walba oo waa bariyay hadday argaan Oromo qof walba oo waa hadday isha ku argaan Oromo. laakiin sheekadaas oo kale inaan qaadan karayn dad walba reer Somaliland oo degayiin Itoobiya dhulkeena dhexda dhul Oromo oo dhexda oo degayiin dhowrsan ida la hadlaysana jiri wax doona ku sameyn jir magaalada Tirada dhul Oromo ayay habeen iyo maalinba waxay doonaan ayay ku sameeyaan oo iska aamusan. magaalada Addis Ababa gaar ahaan waxa degayiin reer Somaliland oo degayiin xaafadda la yiraahdo Boole oo wada loogu sameeyo oo wada oo loogu yaadho reer Somaliland. laakiin maanta waxaan aan baraha bulshada ka aragn waxa aad ugu fooshaxan laakiin sawiraan oo meel kala duwan ay ku soo gasheen oo dhan soo sheegay magaalada Hargeysa.
Hargeysa ormada Itoobiya si cad oo badheedha u sheegteen inay iyagu leeyihiin magaalada Hargeysa waxa buuqi hadalayn xooggan ka dhalay qoraal uu bartiisa Facebook ku faafiyay weyn dhalinyaro oo ka soo jeeda qoomiyadda ormada kaasoo sawirna ku galay khayraadda caanka ee magaalada Hargeysa wiilkaas ayaa qoraalkiisa ku sheegay in Hargeysa tahay caasimada qoomiyadda ormadu door weyn ku leedahay isla markaana ay hore uga sameeyeen waxqabadyo aqooneed iyo mid dhaqanba xuna intaas ku dareen taariikh badan oo qoomiyaddiisa ormadu leedahay magaalada Hargeysa ay halis ugu jirto in la iloobo haddii aan si rasmi loo qorin qoraalkan iyo sawirkan uu wiilkaasi ku faafiyay baraha bulshada ayaa waxa ka cadhooday dad badan iyagoona qoraalkaasi u arkay mid muujinaya sheegasho dowlad iyo qorshe qarsoon oo qoomiyadda ormadu ka leedahay mustaqbalka Somaliland dood iyo walaaca bulshada ayaa sii xoogaystay kadib markii muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa ay ku soo badaliyeen magaalada Hargeysa ka tahay laakiin anagu waxa walba hadalka kama soo khasaaran